السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مالين تجمعة ومالين آدي قيمة بان إلى أكتيسة، ومالين إلهي كإن تري ومديه كوري ومدان أمة محمد ومديه كوري أي إلهي سيتشي مالين قيمة بدن وي جبريل أيوي من نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. markaasuu rasuulka ilaahi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu imaanayay jibriil muraayad ayuu watay aada iyo aad u dhalaalaysa oo u qurux badan, laakiin dhexdeeda dhibco iyo meelo barbara ku yaala. kadibna wuxuu yidhi ilaahay hadiyadaan buu idin siiyey muxamedow, maalintan jumcada ayaa ilaahay idin siiyey si ciid idinkugu noqoto adiga iyo ummadaada iyo kuwa kaa dambeeyaba. maalin qiimo badan weeye, waxaa ku dhex jirta saacad ilaahay haddaa qacmaha u taagatid oo tiraado ilaah waxay sii ama waxaa iga difaac oo ilaahay kaa ajiibayo, saacad qiimo badana. haddii waxaa ilaahay weydiisanaysid ilaahay agtiisa uu kuu qornaa waa lagu siinaya, hadduusan kuu qornaynna mid kalea ilaahay ku siinaya oo ka wanaag badan. ilaahay haddaad shar ka magangeshid sharkaan uu kuu qornaa ilaahay dhinac buu kaa marinaya, hadduusan kuu qornayn sharkaan aada ilaahay ka magangelaysidna sharkan ka daran ayaa ilaahay kaaga difaacaya. waa maalin qiimo badan. maalinta jumcaha markay qoraxdu soo baxayso waagi uu soo baryi rabo jumcaha, geedaha iyo buuraha cer iyo dhul iyo makhluuqaadka ilaahay waxay maaragtay haddii alla kuuran yahay la ooyaano la naxaan maalintaas, waayo waa maalinta qiyaamuhu dhici doono. waa maalintii bini aadankan ama insaankan asalkiisa la abuuray oo ah aadam. waa maalinta la afuufi doono buunka. insaankan asalkiisa maalintuu dhintay weeye aadam aabbahood markuu dhintay wey. waa maalintaa jumcada wey. waxaa la doonayaa qofka insaanka inuu degdego, qofba intuu uga horeeya qofka kale ayuu khayrka uga dhowyaa maalintaas. maalmaha kale lama mid ahan. waxaad badisaa ducada, waxaad badisaa salliga. maalinta jumcada salaada subax jamaacada ilaali. salaada subax idan ahaan iyo guud ahaanba aad bay u qiimo badan tahay, waana salaadaha midda ugu fadli badan waajibaadka. salaad subax oo jamaaca ku tukatay waxaa kasii weyn salaad subax oo maalin jumco ah. maalinta jumcada salaada subax la fiirso jamaaco insha allah, aad bay uga duwan tahay salaada kale ee subax ee maalmaha kale ah. maalintaa walaalayaal waa maalin aada iyo aada u kheyr badan. qofka qubaysanaya, isa soo nadiifinaya, soo tahaaro qaadanaya, waqti hore waqti fiican imaanaya, imaamka dhegaysanaya, saa u fiirinaya imaamka, wacdiga iyo waanadii alla ka cabsiga dhegaysanaya, waa qof aada iyo aada u nasiib badan. maalinta jumcada waajibaad iyo sunan bay leedahay, waajibaadkeeda iyo sunankeeda aynu ilaalin. qubayska aada u qubaysanaysid maalinta jumcaha salaada subax ee maalintaasi jumcada ah ayuu bilaabmaya. salaada subax markaad jumcaha aadaysid oo salaada maalin jumco ay tahay, qubayso, isnadiifi. markaad soo tukatidna haba ku noqonba hurdada. jumcaha markaad soo tukatid yaro iska qayloolso ama yaro iska seexo, iska gaba. caafimaadkaadi adduunyana waa helaysaa, caafimaadkaadi aakhirana waa helaysaa. maalinta jumcaha walaalayaal waa maalin aada iyo aada u weyn ilaahay agtiisa. nabi maxamed oo weyneyn jiray calayhi salaatu wasalaam. hijrada markuu soo hijroon jiray rasuulka hijradiisu ay bilowga ahayd ayaa markii ugu horreysay jumco la tukaday ah. ilaahayna magaceeda ayuu qur-aanka ku sheegay. una degdega khayr badan baa dhex jiifa ayuu ilahay yidhi. salafu saalixna maxay ahaayeen markii maalinta jumco ay joogaan, markii salaada laga soo baxo dukaamadooday furan jireen. annaga waxaa laga yaaba inaynu aaminsannahay maalin jumca lama shaqeeyo, jumca jiif ayaa la yihahdaa, waa la iska hurdaa, habeenkiina hawsha gurigaa laga shaqeeya inaynu aaminsannahay. laakiin dadkii hore wanaagsanaa maalinta jumcada bay shaqaysan jireenba. ilaahay baa yidhi wabtaquu min fadli illah. markaad salaada gudataan dhulka ilaahay ku yaaca oo fadliga ilaahay raadiya, ganacsigiina furta, dukaamadiina ka shaqayso. waa maalin fadli badane. ganacsiga halkaas iyo lacagtaad heshid way ka fiicantaha maalmaha kale, waana ka baraka badanta. aynu haleelno khayrka ka daba tagno. waa mahadsantihiin. baaraka allahu fiikum. assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.